لكن ده تلعبون ولا بس أنا بجوا حاجة كلها وحكى حاجة يلا مد ولا شيء لكن ولقيس أنا ما شرعي عندي ساس الوضع وكلمة قلف سما وجه ده لكن هذا ما واحد من الناس كأنه ترى ما مركا مجال حدير إن لحسيليو مجالين كقاب كل دورت اللي هو مجال هنقط عاصمة منه هدي حقوله منه حاسبتها بينما لقي كلام وحول ما أبوجي وارت نيجيريا مكسر عاصمة اللي بدله وطبعا بدنا عاصمة الملك الكندي وحجاره أيدت كان كوك أمان مجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملك تكتب ولكن كبير محمد نوره وحارب باتيرة تفافلو إري إن بدن دقيقة كسر داعي سيدا دوكتين با أرتو أمد الصوماليات waxay dhageystaan oo markas samarin habaabiya dadka siyaasiyiinta iyo dadka odayaasha ee fartanka ka weyn dhalinyaradu lama dhageysto afartan jiryaalka Soomaaliga ah oo qurxiye waa qabyaaladayste dhalinyarada ayuu doonaya inuu kala dilo dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ayuu dadku kala beeraya haraba eragaas magaalada Muqdisho qabiil baa iskale ah oo in badan soo laalaabtay oo aan wax badan maqlay arba maanta wixii karaankayga inta iga aadan inaan ka hadlo waa aniga fikradayda waanan qabaa dhalinyaro aad u tiro badan oo Soomaaliyeed inay igu fikrad tahay halka hoos komadiga haddii aad igu maskaxta igu fikrad tahay komadiga nugula wadaag saan u ogaano dadka inta miirka ah sida wax u arkaan Muqdisho horta marka koobaad waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed weeye waa caasimad waa hanti qaran dadka ka wada dhaxaysa caasimad marka la yiraahdo hanti qaran bay noqonaysaa hantida qaranka yaa iskale marka hadda ma qabiil gooniya qaranka iskale waa may qaranku wuxuu u dhaxeeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan saw laakiin eray bixina uu isticmaalo wuxuu yiri ninka u dhashay ka ku dhashay ma dhihinadaya ka u dhashay wuxuu ku andacoonayaa in Soomaaliya federaal qaadatay oo maamul goboleedyo ay qaadatay sidaan qiyaasaya ninkaanu waa beesha hadda madaxweynuhu yahay anigu ma doonayo inaan qabiil ka dhawaajiyo maamul goboleed ay leedahay beeshaas ummadda Soomaaliyeed maamul goboleedka ay qaybsatay maamul goboleed kamid ay leedahay caasimaduna sida dadku leeyihiin baladoo fiirso anu markaasaan leeyahay nin caasimada ka carara maahan dadka ninkan uu doodayo ayaa la mid ahay oo ku qabiilahay laakiin xasha ku aqli maahay caasimadaanu jigjiga ka jooga iyo ka Gaarisa jooga iyo ka Jabuuti jooga iyo kan Hargeysa jooga way ka dhaxaysaa qof kasta oo Soomaaliya waxba ku leeyahay sida ogtiinba caasimada waxa wada dhisay oo dhistay ummadda Soomaaliyeed dawladii محمد سياد برا waxay mamnuuc ka dhigtay dabaq laba biyaana meelan Muqdisho ahayn in laga dhisi karin haduu fiirso dabaq laba biyaana meelan Muqdisho ahayn in laga dhisi karin bal ninka la yiraahdo dawladda xeerkeeda ahayd Hargeysa lama dhisin gaalkacyo lama dhisin Kismaayo Baydhabo lama dhisin magaalada Muqdisho ayaa ummadda Soomaaliyeed muruq iyo maal waxay leedahay iskugu geysay guryaha qurquruxda badan يا مقالة مقدسة كيا قبيل كلية ملهن دتك الصوماليات ودنا يودحيان أيها على دستي مركب عربة بل يرانا ولي بالهلا يا أنت نظيفك أنت بانقد قاضي يا قبيل كلها تجي يا رياش أنا فرتنجريالك كامر قاتور كودا دقيسته أنا هذا الكيجو مقصيو أنت نظيفك صومال النبض عقل أمسان قبيل وعكدمي يا إماهن إنه صحبة ودسين يا الهلا يا ودنيالك dadkan odayaasha ee dawladdanadii hore naga burburiyay ilaa haddana dawlad noo dhisila ilaa hadda qabyaaladii iyo qurunkii lugaha dambe kula jira annagana doonaya inay noo geliyaan dhalinyaro yaa la dhageysan waan hubaa qofkii caqli leh ama qofkii wax bartay dadka inta badan kuwa qurbaha yimid ugu daran anigu qurba joogaanahay laakiin qurba joog nadiif baanahay qurba joog baangadu qaaday ee qabiilku la tagay ee beerku madow yahay maahi mid waxaan ay dalkiisa iyo dadkiisa u naxaya odaga iyo inta la midka yaa la dhageysan dhalinyaro dalkan Soomaaliyeed annaga iska leh waa uu naga badan yahay
inaan idhaa anugu halkaana leeyahay anugu halkaana leeyahay wax micnaa noo samaymee waxaynu doonaynaa dalkanaga inaan ku raaxaysanno gees ilaa ka gees inaanu ku raaxaysanno inta dawlad u samaysano ayaa la doonayaa laakiin la dooni maa in la yiraahdo qabiil hebel waayo ma tagi kara meel heblo qabiil hebel waa meel kale ma tagi karo ma doonayno annagu dhalinyaro nahay qalbiganagu waa nadiif dadkii naga horeeyay odayaasha waxay qaldeen inaanu toosino ayaa xaq nagu ah dhalinyaro waxaan rabaa marka mar labaad iyo mar saddexaad oo aan rabaa qodobka inaan ku soo xiro dhalinyaroy 40 jiryaalka dawladdii hore soo dumiyey mustaqbalkoodii waa ku soo dheereen waa ku ciyaareen mustaqbalkoodii waa ku mustaqbal laayihiin qax iyo baraka ayaa cimrigoodii ku dhammaaday waxay doonayaan annagana siday ayagu noqdeen oo kale inaan noqonno caqliganagu inuu nadiif noqdo oo inuu niraadeer waddadaas waa waddadii shalay aan xaartay ee qodaxda lahayd kula qaadi mayno inaan niraa ayaan xaq u leenahay annagu dan dhalinyarana waxaan rabaa marka dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan odayaashan qabqablayaalka ee aan waxba noo hayn ee doonaya inaan qaxaas iyo barakacaas iyo qaraxa ku dhex jirno diida hadalkooda qodobkaas halkaa baan ku xirayaa waxaan rabaa inaan hadalkayga ku daba qabto oloola ayaa socda al-shabaab lagula dagaalamayo anigu kabayar ahaan muddo ayaan sugayay ummadda Soomaaliyeed nuucaan inay u fakarto muddo ayaa waxaan sugayay dadka Soomaaliyeed qabiil walba meesha uu degan yahay al-shabaab inuu kaga kaco waa halka maanta ay taagan tahay waa taageerayaa waxaan taageerayaa nimankaas in meel kasta lagala kaco nin waliba oo ama reemiya ama reemagaala tuuladiisa al-shabaab joogo qor inta qaato inuu la dagaalamo ku jahaado dadka dhigmiiratada ee doonaya nabadda iyo nalal rabin kaliya dawladnimada inaynu la dagaalno xaq waay gurigaada ka kacay al-shabaab waxa uu bilaabay sheekadan culimadii sunna wal jamaa qeyr Allah siiye ee gobolada dhexe 10 sano dhowr iyo 10 sano ka hor ka xoreeyay mar hore al rabin lagu daysado laakiin siyaasadan waxa ku dhex jira dawladda shisheeye iyo dawladda federaalka ololahan hadda socdaahu ilaa al-shabaab laga cirib tiriyaa la joojin laakiin afeef baan sii dhiibanaya maanta qodobka meel ku qora dagaalka raali lagama wada aha dawladda laftirkeeda federaalka raali kama waha hadalka meel ku qora hadalka meel ku qora waxaad arki doontiin dagaalkan iyo ololahan hadda la wado oo joogsaday oo aan hore loo wadin oo halka ku joogsaday oo dawladdu xagal daacisay hadda abaabul baa jira qabiiladii asbaabulaya galgaduud hadda waa looga kacsan yahay hiiraan waa looga kacsan yahay beeshii raxaweyn waa ku kacday anigu horay waxaan kugu sheegay lafta gareen inuu nin tashtay yahay waxaan rabaa lafta gareen nin tashtay inuu yahay inaan maanta idin cadeeye muuqaalkan horta ila milicsada soddon ilbiriqsi ila milicsada muuqaalkan Somali gol koonfur galbeed gol koonfur galbeed cadaalato Somali dhango umad kale ajaanib baa la jeer laakiin Soomaalida kale jidadkan mar hiraawan dariska la sida Hirshabeelle galmudug waxaan rabaa sida lafta garan inay u masayraan inay ka masayraan lafta garan macnaha oo ay ciidan samaystaan oo ayagu soo galaadaan horta marka hore ayagu ay soo galaadaan warkayga halka ku leexiyo doonima ololuhu meel kasta uu ka socdaa koonfur galbeed buu ka socdaa hiiraan buu ka socdaa galgaduud buu ka socdaa nimankii al-shayaadiin ahay dadkii Soomaaliyeed horta waa fahmeen waanan ku faraxsanahay waa soo dhaweynaa dawladdu inay xagal daacido arrinka dooni maayaan dawladda waxa leeyahay arrinka ayaa la xagal daacin waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego dawlad meeqaam dawladnimo in waa hore ugu dambeysay cadayn baan idin hayaa waxaad ogtihiin dawladdan ka horeysay markii meel dagaal ka dhaco siyaasaan dawladeed baa muuqa jirtay diyaaradaha la kici jiray diyaarado al-shabaabka ayadan loo tagin oo aan xabad lala hor tagin ayay qixi jireen tan loo bool xuuftay macnaha system dawladeed 10 diyaaradood oo soo kacda oo mid walba 500 askari sido oo meesha joogaan meel u dhawaagteeda laga dajiyo qalqal baa gali jiray dawladda hadda jirta anagu socodkeeda ma aragnay dhaqdhaqaaqeeda ma aragno
وإنا دولة إنا تهم مجسد وي حسن شيخ محمود بالله يا دولة إنا تهي وإنا موجدت وإنا دقدقاق دولة موجدت وإنا أرقنا الديارات كعينيسد وإنا أرقنا عسكر على الأمر سينيسد وإنا نضو توتا سوحرة تدون صور استاكتد تنكو من الدقال كانوا دبكاياي هذا الكا أنفرودي عداف سنة ميلنا نقو صوبانا دينونا عدين بينو ربنا حسن شيخ محمود كل مدحوينا نوتاي كوريوهوس كمانا ديدانين وينو كو اوغلنا هاي الشباب ميشا كشفاي ديارة كعي عيدا ميلاها دقالكو كسعود الجاي وعاربا وقدام بينتينا كسو قبقبيو قرال كاس هوس انكا قموقضا نيكا سوقريو وماهد صلاة حلقي عبدالله فرماتشو مدحوينا ايو سوقري ما انتي maad salaad isaga ayaa niisa hortaagan oo ah ninka u taliya muxuu bedelay igraanta lilkiiskeedii muxuu ka bedelay asaga xitaa lagu soo eedeeyay cadayn ma keenin inuu ku lug lahayn waa aamusan yahay shalayna saas waxaas buu qoriyay marka ummadda Soomaaliyeed maran habaabinayay oo dadka shacabka uu qarka ka tuurayay ودولتي حلقة جرته وكنبي قبضة مساكينتا مرحومكا ما أنتي بوسكي أصقع فردية ما مقاشي كيسكي إخوانتا للمال وكدن بي أدان كوي دينا إن ما طلع أصقع اللي يري أصقع الدلاي ما هي واحد دن بي ما مقاش هادوكو فعالي يري انت بدن وصومالي كما ماذا شبوار رالي قوفة دات كرياديد ورميل هبلو إيغا سوقات أما العاق السي أما وحاس إيه سمي oo ka aamuso macnaha waxay ka dhigantay inuu qofkaas raali ka yahay waxa sheegaysa Soomaalidu marka waxay tiraa shibu waa raali arrinkaas wuxuu cadeynayaa oo ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa kiiskaasu inuu maad salaad ku cad yahay ninka shalay asagan waxba hayn oo xil aan hayn niise eedeynayay oo taagnaa kiiskii waa la aamusan yahay 4 bilood mise 3 bilood ayaa uu nisoor fadhiyaa هل قرال كما سوقرين مانتي هل أريك كما دهن معادا على أصيب اللقوء يو اللي يرأسها كدنبي حتى ور كما دنبين ما دهن صباح الله محمدي حتى سكوع عدين يسا مروة اللي بدتك السياسيين تنوعه يوح معارضة إياه وحي شيء إياه يسا نبهين دتك السياسي ولي يقف سياسي وحي شيء يرونه قادا هامنين دتكارو دل مربان دد مربان دولة مربان نوال بوحو دورة يا ماشا سو كتاقي لا جيبكو بلسلهاي عقل قادو انتا ما دافسيسنا أنا يا مركب وحنا غاربا إيانو كفانو قورما دادك سومالي حفاما يردك ريحيين ايان قورما دادك فاهما ايان إن كستون اوغاي دادكي سومالي حمانتي إنا يبقو نقطي وراك ومانتي هداد تشيخ صوفر يستو ووعدي سو تشاديو وعدي هدوا وعدي ودين تكهلايو يا هدوا ننكر انت صوفر يستو قبيل عاي يدقال يبركعين يهوج يهلاك شكينيو لايف هدي سو ودا قلان والله بالله اكتلاك هلاك قال الداوريا سببتنا ما قال ما ددكي با اسمانتي كسو شيء ما ومدي سوماليادا ودا حمادي معناها ما قرانيو ما قرانيو كان مقدسو جوغا سي والله يو نقدي كدبدا جوغا markii uu say wallahi caadigaad wadankeeba joogan baruna darabti waxaan marka ugu dambeyntii kuula dardaarmaya walaalkayga Soomaaliyeed dhalinyarada ahaw muuqaalkaygu 40 sano hadaad gaarto kuma qubsaydo iska gudbi walaalkayga dhalinyarada ee qalbigiisu nadiif ka yahay ee 30 sano ka yar baan la hadlayaa dadkaanu horena waan kugu sheegay oo fiidiyowga qaybta hore ku jira mustaqbalkoodii ay ku dheeleen keenna inay ku dheelaan ka yeelinina kadiida waa qaacimiin dawlad la'aan bay noo diidan yihiin waxay doonayaan sida aan buunka qiyaamo loo dhawaajiyo anagoo isku haysano war dalkiina iyo dawladihiina ilaashada dawladda hadda maanta jirta Xasan Sheekh Maxamuud anigu ma taageersani laakiin waa aaminsanahay sababtoo waa dawladdeydii laba horta dadku waa inay kala saaraan آمنات قف كان وحو يهين على آمنتد مثلا وكلا إن هذا آمنتد إن كما يرى اللي يرى معناها إن أنا هاي قف جراء إن هذا آمنتد إيا إن هذا التاجر تد وحكستون شيء الله بكلته
annagu dowladda waa aaminsanna inay dowladdanadii tahay laakiin qaabka ay siyaasadda ay wax ku maamuleen ma taageersanay anigu waxaan rabaa marka inaad dowladda lala shaqeeyo adoo systemka wuxuu wada aaminsanayn waxun bay qabanaysaa al-shabaab ay la dagaalamaysaa garab istaag sabawd garay ha caayin ha aflagaadayn markii oloola qaaday ha noqonin kuwii dowladdan ka horreeyey oo markii maaragtay meel la aadaba Kenya la safanayay ee la safanayay Maraatis walaaqa dowladdii iyo kala qoora iyo shisheeyaha iyo cadawga shabaab waa cadawga ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalkana lama simayo anu hadday la dagaalamaysan waa soo dhaweeyna waa sabot garaynaya aad iyo aad baad maadsantay muuqaalkayga bilow ilaa dhamaad dad ila joogtay waa walaalka kabayra maxamed nuuro kule shan furood iyo ala muuqaalka saaro sheer galay walaalkaada kala gaarsii aad iyo aad baad maadsantay Soomaalinimada ha warto dowlad caadila ugu dambeyntii sida caadada noo ah dowlad caadila ilaahay ha nasiiyo ummadda Soomaaliyeed qalbigooda meel Allah wada jeediyo aamiin soo qora